magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo iyo degmooyinka hoos yimaada ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayay oo bariyahanba booqasho shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisan si ballaaran loogu soo dhaweeyay degmada Yufle iyadoo wafdidu markii ay soo gaareen degmadaasina halkaas ay shacabka reer Yufle kala hadleen sidan uu madaxweynaha hogaaminayay iyadoo ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu shacabka reer Yufle uga mahad celiyay sidii soo dhaweeyeen waxaana madaxweynaha loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceergaabo iyadoo duleedka magaalada Ceergaabo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta golaha deegaanka degmada Ceergaabo cuqaal boqorro salaadiin iyo bulshooyinka reer Ceergaabo kuwaas oo u taagnaa soo dhaweynta madaxweynaha kadib markii wafdida madaxweynuhu ay soo gaareen madasha soo dhaweynta ayay mid u gacan qaadeen mas'uuliyiinta soo dhaweyntooda u taagnaa inta kadibna waxa wafdida madaxweynaha loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo waxaana wafdida madaxweynuhu shacabka reer Ceergaabo kala hadleen fagaaraha beerta xorriyadda ee Nuura waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayarka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda sharafta leh ee la socota midnidu tirin maayo dib wasiiradii oo intoodii badnay ay la socdaan madaxdii ciidamada qaranka madaxdii golayaasha madaxdii axsaabta wafdigan culus ee ballaaran waxaan idinku soo dhawaynaynaa niyad sami anigoo ku hadlaya afka degmada Ceergaabo dadweynaha ku nool iyo golaheeda deegaanka waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo wafdiga culus ee kula socdaa soo dhawaada sidoo kalena waxaa hadalka isaga dambeeyay wafdidii uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sidii qiimaha badnayd wafdigii madaxweynaha soo dhaweysay aad ka qiimaha badnayd meel fog ka yimaadeen u muujiseen shucuurkiina iyo dareenkiina ku qaabishay madaxweynaha wixii laydin qabtay inaad u soo jeedaan oo ka abaal celinaysaan oo u haysaan niyad sami aad bay u mahadsantihiin ugu dambeyntiina waxaa shacabka reer Ceergaabo iyo guud ahaanba shacabka gobolka Sanaag u mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sidii diiranad ay u soo dhaweeyeen aad iyo aad baan idin salaamanaa aadna wadi ka mahadnaqanaa sida sharafta iyo qiimaha aad noo soo dhaweysay aniga waftiga la socda waxaanu dalka u maraynay oo u soconnaa oo u soo kurgaraynay inaan marka hore xogaal noqono dalka iyo dadku waxa uu tabanayo dalka iyagana aan ogaano waana soo tashano waxaanu wadnana aan u sharaxno iyo waxaanu qabanayno hawsha aanu maanta wadno ee gobolka ka wada way fara badan yihiin balse maanta waxa ugu muhiimsan oo laga wada hadlayo mawduucana ku socdaa dhismaha waddada Ceergaabo waddadaas dalka isku xidhiidhiisu waa waxa ahmiyadda ugu weyn qaranka u leh weeye waa waxa dalka meel gaarsiin kara waa waxa dalalka isdhaafiya waa waxa qaranka meel wanaagsan oo horumar leh ku sibi karo waa Barkhad Maxamuud Gaadi Soomaali News TV Ceergaabo.